ياشا بلان يدري ياشا الصومالية وحن السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنا يا مروين وحن يدركوا السلام يا مرلا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكن وحن آد وفر أحسن هاي حلفة وروح بدن شلي أبار الله وصع أي مادين من يراه يقولون ورقليين إني ماركتي حفلة قبليان أي وتاجريان كل سود وينيان مقعبدة يحل بان ماضي ذا آدي بان مهر علينا نمانكاس أقوى يهمينتا دليرة قبل كنوجاله وأنت سوق من قابيي أنا أقول وحي أن سمي الله وحي هدينا نقبله إن سود وياه إن رالي كل نقطة وحنا هدمت فرحات قارة إله وإحنا كنا قسم وجمه العلنية تدك كسوق يبقى النوع كستر هالكن أيان وجمه العلنية مدن يا يمروين أنا هو عبد الرحمن جابري وحلمان ولي أن لدارين وحلمان لصوت دورتيه وعندنا هالكن إن وجمه العلنية كلها دقنك ويوه الريان استمدوا وأنا يصوح لي ويوصوح لي قاب آدو وناكسن وتاريخية ودتكي حملناها أن كدحيان هيد وحي كو قنعان وحان آدي قفر أحسنها قابك حلبان هذا قبل كانوا قال لو قصوا معمولي قابك برلمان كان لكو كيي إن هالقارن وقاضي إسلام عيسى إسلام محمد وسلطان السيد محمد قراسي dadka iyagii ay soo doorteen laba xubnoodna ee qaybka ku maqnaayeen oo dhawaan ugu soo biireen toddobadeedii kale hal gaari in loo ku qaaday loona kula geeyay baarlamaanka iyo guddiga khilaafaadka hortiisa taasi waxay ahayd wax dadkii meesha joogay ee reer Puntland farxad gelisay qaabkii iyo milgadii iyo maamuuskii loo sameeyayna waxa ahaa mid taariikhi ah taasna waxa dhashay habka loogu soo doortay dadku waxay leeyihiin gobolka Nugaal ismadooda habkay u soo maamuleen baan doonaynaa bay leeyihiin 9 gobol iyo 47 degmo ee Puntland taasi waxay ahayd wax taariikhda hore ugu soo jirtay waxaana la doonayaa wixii wanaagsanna in la iskaga daydo waxa kalena laga haro waxaan dadku ku soo dhaweynaynaa inay ku daydaan arrinta ismada gobolka Nugaal ay sameeyeen ee xaqsoor kale ixtiraam kale xaqdowr kale oo in odayaasha dhaqanka nabadoonnada lagu ixtiraamo inay wax soo dooraan markaan intaa iraahdo mudanayaal iyo marwooyin anigu waxaan ahaa walaalkiin idin kula noolaa degmada Tangarowe waxaan anigu magaalada ka deganahay xaafadda Waaberi waxaan ka deganahay 3 goobood waxaanu darisnahay dadka reer Garowe oo dhan waayo sharaacada waxay tilmaamaysaa dariska inta ah marka dhamaanteen badaris baynu nahay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka noqday 66ka baarlamaanka farxadeedana wixii xaqiijiyay intiinaan iyo intii idin wakiilka ahayd ayay ahayd halkan fariin waxaan uga dirayaa musharaxiinta fariin waxaan uga dirayaa baarlamaanka aan anigu ka mid ahay fariin shacabweynaha u dirayaa shacabweynaha ku hormaraya shacabweynuhu waxaa idin iman doona waxaad ku faraxdaan waxaanu dooran doonaa cidda idinku rabteen waxaan ku dooran doonaa sifooyinka la rabo hogaamiyaha qof sifooyinka aad doonaysaan le baan dooran doonaa xildhibaanada waxaan u dirayaa xildhibaanow wixii baarlamaankiina ka horreeyay wanaajiyeen wanaaggoodaan ku haynaynaa waxay qaldeen waa saxaynaa wixii u dhimaanaana waa taabagelinaynaa waxaa la doonayaa inaynu meesha ku soo galno midnimo waxaa la doonayaa gobol waliba isagoo isu soo mideeyay inuu yimaado annagu 9 xubnood baan nahay 9 gobol baan u dhiganaa haddaan gobol walba qof u dirno waa taabagelinaynaa 9 gobol waan israacinaynaa gobolladana waxaan ugu qareemi doonaa siday u kala maaragtay ugu baahi weyn qolada ka baahi weyn tahay waliba awoodda waxaan saari doonaa gobolka Gaardafo oo awtin duufaanaha ka dhacay jid xumada ka jirta
ayaan ugu horumarin doonaa waxaana kala tashan doonaa isimada iyo waxgaradka 66-kana waxaan ka rajayn doonaa inay arrintaa ila qaadan doonaan oo igu raacaan taasina waxay muujinaysaa kuwaanu nahay waxaan rabnaa 66-ka iyagu inaan ka jawaab celino madaxweynaha la rabo ku-xigeenka la rabo baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen walaalayaal jawaabba halkaa laynaga sugayaa musharaxiinta waxaan u dirayaa walaalayaal amnigan aad ku joogtaan dhammaanteenna aan ku joogno hadda lagama shaqeynay 1943 42 baa laga shaqeeyay markii nugaal lagu bixiyey kuka gala oo deegaamada kala diideen oo islaan maxamed islaan muuse uu gudoomiyey diriyo waadan yuusuf nuur iyo nabadoonnadii gobolka nugaal ay isku raaceen iyo siyaasiyiintii markaa shaqeynaysa ayaa laga shaqeeyay nabadgelyada tan nabadgelyadani waa mid jiri doonta waxaa la idin rabaa marka inaan nabadgelyadaas aan ku noolnahay maamulkii ka shaqeynayeyna waxa weeye aan waqtigiisii dhammaan iyagana waa uga mahad celinaynaa ilaa askariga qoraxda taagan iyo kan dabeysha taagan iyo madaxa u sarreeya madaxweynaha iyo baarlamaanka fulinta garsoorka dhammaantood walaalayaal waxaad idinkana aan idin leeyahay waa inaad u hoggaansantaan amaawiirta ka soo baxaysa golaha dhaqanka oo isimadu u horeeyaan iyo dowladdaba waxaynu ku gaari karnaa halkaa u socotaan inaan dhammaanteen aan ilaalino amniga annaguna waxaanu nahay kuwa la saaxiib ah cidda wanaagga ka shaqaynaysa halkan mar labaad waxaan doonayaa inaan ku celiyo inaan u hambaliyeeyo ummadda islaamka ah Soomaaliya oo runtii federaalism ah waxaan taageeri doonaa federaalka aan ku taageerayno wixii aan wada leenahay wixii aan kala leenahayna aanu kala ilaashan doono waxaanu kaga midnahay federaalka inaanu nahay Puntlandnimada iyadu waa mid soo jidhay 20 sano dibna u jiri doonta waxaanu adkeyn doonaa qodobada dastuuriga ah waxaanu doonaynaa qodobada la isku hayo in la isla naqaasho oo runta la isaga sheego in dowladda federaalka qodobka 22 ay fiiro siineen 54 ku dhigan tahay waxay noqonaysaa in annaguna 54 ogaano iyaguna ay ogolaadaan intaas oo aan fadhi ka yeelano madaxdana waxaan faraynaa inay tahay madax wanaagsan oo waxyaabo badan aan saxaafadda la isu marin si toos ah la isu horfariisto la iskana qanciyo walaalayaal insha Allah meesha tan waxa weeye bogaadin iyo raali gelin wixii kale aan ku fogaadayna waxa weeye waxa dadka bulshada ka turjumayna inaan wax ka niraahnana weeye aad iyo aad baan u mahadsantihiin